السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحران channel كينا دمانتي سو dhawaada saaxiibayaal caawa iyo abdeedadii ugu dambeeyay ama qodobada marka ugu xiisaha badan iyo barnaamijkeena oo aynu rabnaan ku soo qaadano dhowr qodob oo aad u xiiso badan iyo akhrinta marka hadda ka taagan gobolkii Sanaag iyo beeshii Warsangali taxanaadkii Somaliland oo gabi ahaanba marka gobolkii Sanaag ama beeshii Warsangali oo deegaamadoodii subaxnimadii maanta marka imtixaankii loo wada fadhiistay Somaliland maxay sababtaasi ku dhacday yaa ka dambeeyay cadeymo badan oo aynu hayno oo isla arkayno ayaa aynu u galeynaa waxa kale qodobadeena kamid ah oo aynu isla arki doonaa waa gaari marka ciidamadii jamaahiirta SSC Khaatume State ama beesha dhulbahante maalintii shalay marka ay gobolka Sanaag ku soo afduubteen oo ahaa gaari marka nooca xamuulka ah oo shacabka ah taas waxa ka horeysay gaari isagana ilaa iyo 3 bari ka hor beeshii ay qabsadeen oo kana marka maalintii shalay la qabsaday hadaba waxa dhacday sheeko aad u la yaab badan oo ciidamadii marka jamaahiirtii ka soo jeeday beeshii dhulbahante gaariga ay marka qaadanayeen waxa kula dagaalamay waa ciidamo Somaliland ah oo beeshii Warsangali ka soo jeeda qodob aad u la yaab badan aynu rabnaa ku soo qaadano videogan oo isla aragno oo wax aan gabi ahaanba marka la filanayna iyo beeshii Warsangali oo awal waxa aynu ogeyn ragooda kaliya ama odayaashoodii ayaa horgal ah balse maanta waxa ku soo darsoontay dumarkii beeshii Warsangali ayaa xitaa marka horgal ah oo banaanka iskeenay waahaga qodobadeena ayaan u gudagaleynaa intaynaan marka u gudagalin arrintan beeshii Warsangali iyo xaaladdu soo socoto bal waxa rabaa marka ugu horeysa inaan qodobkeena ku bilaabano waa tan koowaad ee marka ah gaariga marka maalintii shalay la soo qabsaday nimankii beeshii dhulbahante ay soo qabsadeen ama jamaahiirtii gaariguna waa kaas aynu hadda halka uga jeedno oo ciidamada jamaahiirtu marka ay soo qabsadeen باشا عبد الله حمد دولي بدي gaarigaas hadaba aynu u jeedno ee jamaahiirtu soo qabsatay oo ay ka soo qabsadeen marka meesha ay waliba aadeen waa gobolkii Sanaag oo dhulkii Warsangali dhexdiisa ay ciidamadaas gaariga ka soo afduubteen jamaahiirta ama beesha dhulbahante ka soo jeeda waana deegaan ay marka iska leeyihiin oo waa niman hartay ciditaa su'aal iska weydiin mayso hadaba gaarigaas waxa ku horeeyay waa gaari kale oo isagana marka dhowrkii bari ee hadda la soo dhaafay baa la warwareejinayay oo reer Somaliland ama beesha Imraan iyaguna marka ay qaateen oo gaari dhulbahanta markaas ka lahaa uu ahaa waana gaariga halkaas inay hadda ka u jeedno oo ay qabsadeen jawaabtii marka gaariga ay marka hor qabsadeen reer Somaliland ayaa kan uu marka ku yimid oo beeshii dhulbahante maalintii shalay ay gaariga soo qaateen gaariga markay soo qaateen maba xumee waxa kula dagaalamay waa niman ka soo jeeda beeshii Warsangali oo horgalla ah oo marka Somaliland u shaqeeya amuurta iyo yaabka meesha yaala iyo beeshii Warsangali jabkan iyo hoogan sanadkan ku dhacay wax aynu aragno oo aynu maqalnay ama hore u dhacay maahan horgolnimadoodu waa ay dhaaftay oo hadda waxa ay maraysaaba in marka xitaa beeshii dhulbahante ama ciidamadii marka SSC inay dagaal kuba soo qaadaan nimankii Warsangali oo ay kula dagaalamaan maxaad gaariga Somaliland u qaadanaysaa videoga marxaatiga inoo ahna waa kan ee bal ila arka أبو هريرة واحد يقول واحد يقول يعني ما كان عملته ولا ما بالحساب ولا مش شبابه ولا ما لسه مش شغالة ولا ما دولة الصومال كم مشاركاته ما أنت قاعد مجدعي ساقول هاي مجدعي استفوز برند في ما أنت واقع كدعي لما كي حبذي شو دقي حبذ رجعي لما كان طولها وريها هو هذا السر اللي حبله أوبر يعني waa yaab iyo amakaan waa gaariga marka ay beeshii dhulbahante shalay soo qabsanaysay oo carro Warsangali baa kaba soo qabsadaan dhib ma lahan waxa u dagaalamayay marka oo xabadda riday oo nimankaas dhulbahante la dagaalamay oo xabadda ku ridayba waa niman marka ka soo jeeda beeshii Warsangali oo Somaliland u shaqeynaya yani horgalnimadoodii beeshii Warsangali inta horgalnimo ka tagtay ayaa waxa ay hadda maraysaa xaalkoodu in ay xitaa beeshii dhulbahante kula dagaalamaan gawaari Somaliland ay marka leedahay intaas maxaa sababaya waa heerka horgalnimo ay gaartay xaaladoodu waa niman gurigoodii ceeri gaaban laga haysto oo waxa marka ayaguna ku dhaqmaya oo hadda guryahoodii kaleba looga daba tagay ilaa iyo duraan ayaa uu marka imtixaan maadkina ka dhacay sida ay ognahay wallahi Warsangali saamba u dambeysay waxaa leeyahay Somaliland waxa hadda dhacaya waa turkood أنا هرب وعند كل شيء لما كان سوى لما الشباب ولما
niman caalaqaatiyaala taasa caddayn maanta idinku filan anu hore wadi ku sheegay laakiin way iga qaadi weyday maanta taa caddayn ay ku filato nimankii mabaantee gaariga isaaq lahaa ee reefkumadii beren dhexdooda ku qabsaday horta hawshan iyo dhibaatadan maanta taallaba waxaa anigu mas-uuliyaddeeda aan saaraya waa maamulkii khaatume state iyo madaxweyne firdhiye maxaa yeelay maamulkan SSC khaatume state markii la dhisayeyba maamul deegaankii ama SSC sool sanaag iyo cayn intii ay dad ka koobnaayeen maamul la isugu keenay oo la isku dhammaan ma ahayn haddii maalintii maamulka la samaynayay haddii dadka inta la isugu wada waco markaa maamulku buuxa la dhisi lahaa maanta tani maysan dhacdeen itixaanna markaa somaliland kuma qabsateen gobolkii sanaag waa war cad oo waana sida saxda ah qaladkii marka shalay la galay ayay dhibaatadan oo dhan markaa ku timid oo dhankii maamulkii khaatume state-na arrinkaas aan weli laga sixin markii halkaa ka soo dhacay mara ka soo orday qoryaha iyo hubkada soo qaateen nimankaa xabadda la dhacay ilaahay baa ku dhashay iyay had u jiidayaan bal iyay had u jiidayaan nimankaasuna waa niman tola waa niman dhubaanta iyo warsigari ah weli waa niman dhubaanta waa ciidankii ninkaa dhubaanta watay waxaa laga sii khaatumo meesha ha loo kuur galo ha laga soo baxo nimankaa meesha annagu haddaan warsigari lahay raalli baan ku nahay nimankaa ha soo qabto oo ha la weeraro oo inta yar haystaan ha laga qaato ama horena waa idinku sheegayaan waa hagaag intaa marka aynu ka soo tagno dhinacan kale ee beeshii warsangalay yacni horgalnimadoodii waa aynu u jeednaa heerka marka ay maanta taagan tahay iyo xaaladdu meesha ay marayso waxa ay xabadda iyo hubka usoo qaateen waayo waa niman iyaga markaa walaalahood ah oo dhiigoodii ah oo gaari markaas gaariga la dhacay iyo wax shacbley horta in la dhacba maahan oo waa qalad balse waa tit for tat oo xaggana gaari baa laga qabsaday iyaguna markaa gaari kale ayay qabsadeen oo wixii waa farfar ku taag ayaa meeshii socotaa ilaa xal laga gaarana arrinkaas ma u malaynayay in ay fududaan doonto oo hawshaasi labada dhinacba waa ay ka socon doontaa muhiimadda ayaa waxa ay tahay nimankan warsangali haddii ay hubba wataan oo ay xabad ridayaan maxaa u diiday magaaladoodii ceerigaaba inay soo dhexsadaan reerkani waa kuwan jabay oo hoogay oo wada horgallada ah oo dumarkoodina hadda ay maanta markaa wada horgalla yihiin awal odayaal iyo rag iyo waxbaynu ka ogeyn horgallo ah maanta dumarkoodii ayaa horgallo ah waxa aan halkaa qodobkaana ka tagaa rabaa balse arrinkan maamulkii khaatume state hawsha meesha ka socota waa aynu u jeednaa iyo beeshii warsangeli in markaa la taagay oo ay wada sirxan yihiin idinku ama dani ku riixa ama cid kale ku riixa balse meesha dhibaatada waxa ka dambeeya oo aniga ii muuqda waa suldaan siciid suldaan cabdisalaam oo caddayntiisana markaa waan idin tusayaa videogan qaybtiisa dambe ayaynu caddaynta ku arki doonaa suldaanku isagaa reerka ka mas-uula heerkaana markaa isagaa maanta gaarsiiyey waa hagaag ciidamadii markaa ama maamulkii khaatume state ama jamaahiirtii meesha nimankan waa taagayin tolna uma jeedaan wax kalena uma jeedaane inta loo yimaado ayaga laftigooda ha laga xirto ayaan taaganahay oo dhegta hala jaro markaas ay hurdada ka kacayaan oo ay soo baraarugayaan waa hagaag qodobkan halkaasaynu uga tegaynaa qodobkeena labaad ee ah marka itixaamaadkan iyo hawshan socota wax walba waxa iga daran bal videogan fiiriya aynu hadda halkaa uga jeedno waa gabdhihii kasoo jeeda marka magaaladii baran ama degmadii baran oo iyagu waxa ay ku faraxsan yihiin oo ay saa ugu boodboodayaan waa itixaanaadkii markaa somaliland ee gobolkii sanaag ama beeshii warsangeli gabi ahaanba dhulkoodii oo dhanba itixaankii markaa saaka laga wada galay exaamkii markaa ay saaka ardadii usoo kalahday oo ay galeen oo glass 8 ilaa iyo form 4kii markaa ah baran kaliya kuma eka balse degmo walba ama deegaan walba oo beeshii warsangeli lahayd ayaa uu itixaankaasi hal mar saaka laga wada qabtay iyo gebi ahaanba markaa somaliland oo dhan ardayda itixaanka u fariisatayna waxaa lagu qiyaasay inay ahaayeen ilaa iyo 40,000 oo ardayba buraan oo aynu ogna inay highland markaa ka tirsan tahay oo boosaaso ay uga dhowdahay ayaa laftigeeda itixaankii somaliland uu markaa saaka ka qabsoomay dhibaatada iyo amuurta taalla dadka deegaankoodii markaa itixaankii uu hadda ka qabsoomayo oo iyagu arrinkaa ku faraxsan waa dad guryahoodii markaa laga soo ereeday oo nuura afcasna gurigii suldaankii weynaa ee horgalkaa suldaan siciid ay gabar nuura afcas la dhaho oo habar jeclee ay xoog ku haysato oo maalin walba ay video kasoo duurto odayaashoodii waa aynu ogeyn ilaa iyo suldaankooda inuu horgal ahaa oo aan waxba markaa laga qoraynin oo reerkaanba inay gumoobaan ama dhibaatadaasoo dhanba ay galaan isagu uu hormuud ka yahay wixii ku dhacay ama wixii soo dhacay marka dhinacaa la iskaba dhigo hogaankooda ayaa horgallo u badnaa iyo rag markaa iyagoo siyaasiyiina qaarkood oo meelo badan ka qaraabanayay maanta xaaladdii waxa ay taagantay dumarkii ayaa xitaa horgalnimadii kasoo qaybgalay oo ka mid ah oo itus oo itaabsi iyo markhaati oo weliba iyagu ay caddaynayaan hawshaan oo dhanba in uu markaa suldaan siciid ka dambeeyey maxaa haddaba marka meeshii hadda yaalla waa loo jeedaa buraan iyo badhan iyo inta
maanta uu ka socday intixaamaadku dhanka kale maamulkii Puntland ayaa iyaguna xafiisyadii dowladda fadhiya oo howlahoodii markaa shaqo wata marka beeshii warsangeli magaalooyinkoodii iyo deegaankoodii iyo dhulkoodiiba waa xafiisyadii oo Puntland fadhido iyo intixaamaadkii iskuuladii iyo qaybtii kale ee dowladda oo Somaliland ma fadhido waa Puntland iyo Somaliland oo markaa wada socda oo reerkii warsangeli ahaa iyagu markaa wada maamulaya meel kasta oo ay wada deganaayeen waana gudnimo iyagu ay isku geysteen oo horgalnimada ama lacag jacaylka ama iimaan darradaasi meel walba ay ka tuurtay dadkoodii dhalinyarada ahaa ee iyagana loo baahnaa inay arrinkan ka dhiidhiyaan waa ay ku faraxsan yihiinba waa fiidiyoodan ay hadda soo arkaynay ee gabdhuhu markaa ay boodboodayaan ee intixaamaadka iskuulka oo ay galayeen ay markaa ku faraxsan yihiin jabka soo gaaray iyo hawshan ku habsatay mid hadda iyo kadibna horta ay kasoo bixi doonaan maahan ilaahu nasr u soo dira ama maamulka Khartoum State oo inta uu dagaal soo qaado macallin warsangeli laftigooda dagaalka dhinac kaga bilaababa ilaa way taageen oo waa hudaysayn ama waa sixrayeen oo nin dhulkiisii la haysto isagu bal aan waxba kale uga dalka warrama meeshii mucjisada iyo inkaartaas ka socota okay waxa ay rabnaa marka inay u galno isla aragno cadayna marka ka hayno arrinkan oo dhan yaa ka dambeeyay in beeshii warsangeli ay waxaan ku dhacaan oo hawshan marka ay korkooda ahaato waa Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam iyo odayaashii ka soo jeeday iyaguna beeshii warsangeli ayaa arrinkan marka iyagu galay oo hawshan ka dambeeyay cadayntuna waa tan ay bal isla aragno idinka ayuun baa marka yaabi doona waxa meesha ka socda waa isuduwaha wasaaradda shaqagelinta baran oo ka hadashay hanaankii uu ku bilaabmay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee gobolka waa qof iyad marka ka soo jeeda oo dumara oo ka soo jeeda magaaladii baran oo beeshii warsangeli u dhalatay bal horgaladana waxa ay ku hadlayso ay soo dhageysano idinka ayaa yaabi doona inaydan oo wixii maanta ku faana fad baan dagaal gelin inaydan ku faanin rag baan dhintay oo aan ku xorownin inaydan ku faanin raggii dhintay inaydan ku faanin wixii dhintay inaynu ka murugaysanahay wax kalena inaan ilaahay inaga garayana ilaahay ha ku garab galo ugu horeeyo sida aan sheegay suldaanka guud beelaha warsangeli oo ku xigo wasiirka maalgashiga mastaxaad waxaan hambaliyay iyo bogaadin iyo duco u sii diray gobolka badan waxay ka bilowdayba inaad dagaal ku faantaan iyo inaad xaqiinii dhacsataan waxyaabahaas oo dhan ha gelina waa dad dulman ahaada oo intixaanaadkiina iska gala lacagtiina iska qaata hawshanna waxa ka dambeeyay oo soo fududeeyay oo in gobolkii Sanaag iyo dhulkii beeshii warsangeli oo dhanba intixaamaadku maanta ka qabsoomaan waa wasiirka markaa maalgashiga hadda sheegaysay iyo suldaankii guud ee beeshii warsangeli ama beeshii daarood Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam oo isagu ah ninka markaa beeshii warsangeli godkan kuba ridayba ama uba dhameeyay ama gumeeyay oo maanta ay hawshaasi ku socoto Suldaan Saciid waa ninka gurigiisii ay haysato gabadha Nuur Afcas la dhaho waa ninka ku kalifay beeshii warsangeli magaaladoodii ceerigaaba inay ka soo qaxaan oo guryahoodiina markaa xoog lagu wada haysto iyaguna wali Suldaan ay uba aaminsan yihiin in uu yahay waxaan leeyahay gobolka baran barwaaqo bashbash iyo nabadgelyo iyo nimco ilaahay haydiisiyayo aan haysataan waxaan leeyahay marlabaad iyo marsaddexaadba guulaysta waxaan leeyahay bulshada reer Somaliland meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo imtixaanaadka shahaadiga ah marnaba ha u baqin qaranka oo qarankii Somaliland oo beeshii warsangeli hadda waa aynu u jeednaa rag iyo dumarba waa is soo wada qaawiyeen wajigii ay soo wada fiiqdeen oo horgalla ay yihiin suldaankii iska badaa raggii kale iska daa maamooyinkii ama islaamihii markaa beeshii warsangeli ayaa iyaguna horgalladaas ah waxa rajada laga sugayaa marka maxay tahay war cid kale awalba waxba kama rabin iyaga ayuun baa lahaa waa istoosiya oo dad yacni mansab leh oo han leh oo muuqda noqda kaale adigu sheeg jeedalkii in la garaaco iyo horgalnimadii ayaa ay u wada ordayaan hadaa maqla jirtay gudnimaa jirta waa dhab oo reerkan ayay maanta markaa ka muuqataa dhalinyarada gobolka igaan ka soo jeeda gobolka badan waxaan leeyahay ilaahay haydi siiyo nabadgelyo runtii marka laga hadlo ereyga bulshada nolosha waxbarashada caafimaadka dowladda intaba waxay sal ku haysaa nabadgelyada ilaahay haydi siiyo tugtaa oo nabadgelyo ku wardida guryahaagii baaba la haysta oo dhulkaagii baa la haysta bal aduu qof dhulkiisii la haysto oo guryihiisii la haysto oo isagii inta la laayay la soo ereeday oo haddana kula nabadgelyo ayaynu ku faanayna xagga lagu arkay bal mucjisada meeshaan taalla ilaa arka dadiyo
hadda islaantan horgaladii waxa ay ku doodaysaa nabadgelyadiina ku wadiya oo gacanta ku haysta. nabadgelyadu xaggee ayay joogtaa? guryahoodii ayaaba dadkan laga soo eryaday, waa barakacayaal bannaankii ayay fadhiyaan oo deegaankoodii iyo magaaladoodii ceerigaabo ayaa xoog iyo xabad looga soo saaray. suldaanka horgalka ee reerkan hoggaanka u ahna gurigiisii gabadh baaba haysata. marka nabadda ay ka hadlaysa iyo waxa ay wadaan waxa ay tahay ayaan la yaabanahay. nabad waxaad la qaadan kartaa ama aad qof nabad isugu imaan kartaan waa marka aad waxaagii dhacsatid oo aad xaqaagii haysatid. balse horgalnimadoodu waa another level. reerkii warsangeli allah u naxariisto kuwan waa dhinteen, waa aynu jirnaa, cuquba ayaa ku dhacday. meel ay ka soo laabtaanna habeeraate iima muuqato. waxaasoo dhanna maxaa u sababa? Siciid Cabdullaahi Dani ma ahane, waa suldaankii beeshii warsangeli iyo odayaashoodii iyo raggoodii siyaasiyiinta ahaa ayaa intaas ku sameeyey ama waxaasoo dhan u geystay. sidaas marka ay tahay, maanta maamulkii Khaatume State ama madaxdoodii ama dadkii kasoo jeeday haddii ay kaba hadlaan oo magacii SSC markaa lasoo hadal qaado ama gobolkii Sanaag markaa lasoo hadal qaado, beeshii warsangeli ayadoo ordaysa oo calan maakhir markaa la dhaho wadata ayaa ay daaqadaha iyo godadka kasoo wada baxayaan. ayagoo maakhiraysan oo aad u madid inay aakhir kasoo baxeen bay meel walba kaaga soo boodayaan oo dagaal iyo ay ka taagantahay meel xun. laga aamuso oo geeskaa laga istaago, waa kuwan waxay ku heesayaan marnaba qaranka ha u baqin. waa wada horgal, nin iyo naag, meel ay ku kala hareba ma wada jirto. horgalnimadaas ayaa ay wada gelayaan. calankii Khaatume State ma arkeen? calan kale oo cagaar iyo buluug iyo wuxuu aanan garanayn ayaa la soo baxayaan oo ay leeyihiin maakhir ayaan nahay, maamul ayaan nahay. mar kalena magaalooyinkoodii iyo dhulkoodii iyo deegaankoodii dhan waa ku imtixaankii baa laga wada fadhiyaa. magaaladoodii ceerigaaba xoog lagu haystaa. nabad bay iyaguna baran iyo waxay ka raadinayaan buraan iyo meelo aan loo baahnaynba. war kuwan waa dhinteen, kuwan reerkan aakhir ayaa loo diray. wax kale aynu dhahno ma naqaan. islaantan horgaladaana videogeeda ma kusii daahayno. heer waxa ay taagan yihiin xitaa dhulbahanta haddii uu markaa ama weer soo qaado ama wax qabsanayo ama wax samaynayo, waxa kasoo horeeya ee xabadda isku dhigayaa waa beeshii warsangeli ciidankoodii kuwo ka mid ah oo markaas Somaliland u shaqeeya. shacabkii dadka qaar baa kala soo jeeda sida dawladka ay dhageysanaynay oo kale iyo dad badan oo la mid ah. balse reerkan wuu ahaaday ama waa taagan yihiin ama dee faa'iido ma lahanoo waa dad ay uba dhammaatay oo gumaysiga marka ay ugu baahan inay ku noolaadaan. qof nabad u diiday, qof nolol u diiday midna ma jirto. balse suldaankoodii ayaa lacag shaabka gashtay, iyagiina saas u baabiiyey oo hogga iyo baageliyay. ayagoo dhulkoodii laga soo qaxiyey oo barakacayaal oo qaxootiya ayaa waxay ku leeyihiin nabadeena aan ilaashano. nabadi ku dishay maan dhaha. videogan kuma daahayno, waan ugu dheeraaday. halkaas raba inaan kusoo gabagabeeyo. intaan isugu imaadna videogan video lamida iyo wixii cusub markaa kusoo kordha insha allah waxaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.